Baarta saddex jirsatay ee ku dhufatay gobolada galbeedka Soomaaliland taasi oo saameysay dadka iyo xoolahaba. Dhimashada xoolaha ayaa noqotay mid joogto ah. Shabakada caalamiga ee Boroman News oo booqatay degmada Qunujeed ee gobolka Awdal ayaa waxay la kulantay iyadoo xabaalo loo sameeyay xoolaha dhintay. Haddii aad hore u arki jirtay xabaalada waxa soo baxday xabaalo xoolaad. Xoolaha dhintay ayaa ah kuwa gaajo iyo cudur ay laayeen guud ahaanba dadka ay abaaruhu saameeyeen. Gurmadka raashinka ka sokow may helin gurmadyada caafimaadka dad iyo xoolaba, waxayna dadku isweydiinayaan halkay mareen wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka. sida ay ku waramayaan dhakhaatiirta ku xeel dheer caafimaadka dadka xoolaha dhintay ee la aasayo marka uu roobku curto waxa ka dhalan kara cudurro badan maadaama ay dadku deegaanadaasi biyaha ka cabaan ballayada iyo barkadaha oo ah roobabka daa. marka hore waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka news Boroman News yaan soo dhaweynaynaa oo maanta noogu yimid degmada Qunujeed annagoo aasayna xoolihii dhintay ee deegaanka dadka ku soo barakacay ee lagu soo ururiyay kaamka barakacayaasha degmada Qunujeed xoolihii ka dhintay oon ku aasayno cagaftii dawladda hoose ee degmada Boroman iyada oo noo timiday maamulka gobolka oo noo soo diray maayirka degmada Boroman oo noo soo diray si haynu uga aasno caafimaad darrada ka iman doonta xoolaha dhintay oo lagu qiyaasayo kumayaal ma aha xoolo yar ma aha boqolaal ma waa kumayaal weey awal deegaanka degmada Qunujeed de waxa ka jiri jiray qabuuraha xoolaha qabuuraha dadka maanta laakiin waxa ku soo beeray inay jiraan qabuuro xoolaad oo la oran doono waa qabuuraha xoolaha dhulkaas oo ku aasnay ilaa 2,000 oo neef in ka badan han ku aasnay waxaan dadka u sheegaynaa deegaanka degmada Qunujeed ee ballayada ka caba ama barkadaha ka caba inaan hadduu roob da'o aan laga cabin barkadaha iyo ballayada waayo miidka daadsaneen aasnay hadhow roob hadduu da'o wuu qaadi karaa oo ballayadii bay gali karaan oo barkadii bay gali karaan taas in la iska ilaaliyo oo dadku iska ilaaliyaan ayaan ugu baaqaynaa dadweynaha degmada Qunujeed ku nool inaynan ka cabin inta haween aan dhinac u kala dhacayno xoolaha dhimashadooda iyo waqtigooda hay kala cadaanayso inaanay ka cabin ayaan ku wacyigelinaynaa waxaan kaloon u sheegaynaa qurba joogta deegaankan degmada Qunujeed u dhalatay inay degmada Qunujeed ka taagan tahay maanta abaaro ba'an dad ku soo barakacay iyo dadkii deegaanka oo iyaguna sida kuwaniba u soo barakaceen qululay iyaga oo qululay xoolaha ka soo dhamaadeen sida kuwan oo kale kuwani in la dhaafay Itoobiya inoo dhaafay maahan kuwii deegaanka ka qululay meel ay noo dhaafayaan ma jiraan markaan si guud uga warramo xaaladda deegaanka waxa jirta dadkii la soo ururiyay ee deegaanka degmada Qunujeed ahaa meel way iska yaaleen meel uma gudbayaan kuwaas waa kuwii qululay iyaga ay xoolaha ka soo dhamaadeen halkoodii bay iska soo noqdeen oo waa dadka barakacayaasha xirada ku jira dadkii laga soo ururiyay xeebaha ee Itoobiya ka qululay qaybi way gudubtay qaybtii hay xooluhu u fayoobayeen ama muur haysatay hay muurkoodii u noolaayeen dameerihii awrtii way gudubtay oo wayna dhaafeen saayidina waana siinay waxa nagu hadhay qayb han iyaduna gudbino waxay ku gudubtay oo muurkii iyo awrtii ay ka dhinteen kuwaasna way degan yihiin indhihiina noo tasaartay gaar ahaan waaxda caafimaadka guud ahaan markaan tilmaamo waan arkaynaa caafimaadka qaybta dadka way noo yimaadeen xagga xanaanada xoolaha haba yaraatee inta barakacayaashaasi ay soo gaadheen deegaanka Qunujeed haba yaraatee wax aan ka aragnay ma jirto iyaga waxaan ku boorinayaa inay qaalintii ay ku lahaayeen xanaanada xoolaha inay yimaadaan xagga barakacayaasha deegaanka waxaan ku qiyaasi karaa dadka wixiina dhaafay waxa jooga hadda ilaa 1,000 qoys oo dadkii deegaanka oo barakacay inay ku nool yihiin halkan waxaan ku qoodinaa wixii dadka masaakiinta iska soo ururiyeen ganacsatada Boroman
muxuu ahaayey masaajidada saqadayda dadka maxaa ahaadaanay suuqa qariiraha wax ku sida ay iska soo ururiyeen ay noogu keeneen maamulka kujiyada annagu haddaan nahay ayaa waxaan quudhi halka aan ku quudinaa hadba wixii sidii aan u siin karno fariintaad u dirayso dirayo dadka qurbajoogta waxaan u dirayaa dadka dee kolley qof unbaa anfaco maaragtaanay dee dadku ma wada baxo waxaan ka codsanaynaa dadka qurbajoogta inay dadkoogaa barakacay soo gaadhaan oo ay maxay ahaydaan ay la soo gaadhaan wixii gargaar ay u helayaan ay la soo gaadhaan muurkii uu ka dhammaaday maalkii uu ka dhammaaday muruqoogii kuma xoogsan karayaan maxay ahaydaanay sidaa darteed in dadka la soo caawiyo oo la soo gargaaro oo hadday tahay muxuu ahaayey xoolo hadday tahay anfac la cuno iyo hadday tahay caafimaadba qurbajoogtu kaalintii ay ku lahaayeen degmada Quljeed ay ka soo gaadhaan maan ka codsanay gudoomiye ku xigeen waxa noo sheegtaa dadkan meeshan barakacayaasha ku jira waxa lagu maqaalaa in dadka badankooda ay ka yimaadeen dalka Itoobiya dad deegaanina ay jiraan bal dadka daawanaya shabakada Boorama News waxaad u qeexdaa dadkan iyo halka ay ka soo kala jeedaan dadka barakacayaasha ka yimiday muxuu ahaayey degmada dalka Itoobiya waa run oo way jiraan wayna dhaafeen badankooda dadka imika aad aragteen ee nagu indhihiina aad ku soo aragteen waxa weeyaan dadkii barakacayaasha ee dalkoodii meel kale oo u dhaafaan haba yaratee inay jiraan sidaa darteed dadkii muxuu ahaayey barakacayaashii ee ku socday dee deegaankii kolka horeba ay ka yimaadeen dee waanu isdhaafinay oo sahay wixii aan u helayn waan siinay wayna socdeen bar waxaa jira xitaa imika sahaydii aan siinay qaadan kari loo wax waxay ku qaataan waaye oo maxay ahaydaan jiifa meesha dad aanan waxba siinin oo xalay ilaa muxuu ahaayey saaka socdo oo noo yimiday way jiraan gudoomiye ku xigeen waxa gurmada weyn naga soo gaadhay deegaanada dadku ay ka yimaadeen ee dalka Itoobiya iyo dalka jaarkeena ee Djibouti oo dad badan oo barakacayaashani ay ka soo jeedaan labada dal ee Itoobiya iyo Djibouti mayhaba yaraatay oo soo gaadhay wax gurmada oo soo gaadhay waxa jira dalkeena Soomaaliland hadday tahay dadka ganacsatada iyo hadday tahay masaajidada iyo hadday tahay saqadayda suuqa fadhida waxaan dalkeena Soomaaliland dhaafsano loo yidhi jiro oo ku magac dheer Qabri Daaweed ayaan kula kulanay deegaanka degmada Quljeed waa dirawalka cagafta aasaysa xoolaha waxaad warbixin yar oo kooban naga siisaa intii aad ku sugnayd degmada Quljeed iyo tiradii xoolaha ee aad aastay iyo xaaladda dadku ay ku nool yihiin waad fiican tahay waxa weeyaan 3 maalmood baan joogay maanta la 4 maalmood baan joogay Quljeed 6 ilaa 6 waxa la shaqeeyaa dhibaatada xoolaha ka dhacday abaaruna waa mid aad u ballaaran nasiibo Ilaahay laga bariyo qof kasta oo Soomaaliland waxaan u sheeganaa inay dadkooga tabaalaysan ee xoolihii ka dhamaadeen ay wax soo taraan annagoon qureecan annagoon qadayn annagoon cashaynba 24 saacadoodba cagaftaasi ay aastaa xoolaha sidaa darteed dadkeena masiiba ku dhacday masiibada waa in qof kasta oo Soomaaliland uu ka gargaaro yoomka ay ugu yartahay 150 ama 120 baa la aasan maanta oo kale waa 300 oo neef sidaa darteed aynuguna dadkii dhulka ayaa tii waxaan nii sheeganaa warbixintaasi inay aad u adagto xaalad bili aadanimo aad ay u adagto waxaad ka warantaa dadku waxay ka yimaadeen dalka Itoobiya xoolo ka maranaya ka waran dadkaasi wixii Ilaahay u reebay laakiin halkan aan joogno imiga xoolahani waa xoolo Itoobiya markaasi aan xoolaha deegaankuna ayna cudurku u gaadhin iyo loo aasayaa imiga xaaladdan waa xaalad degdeg ah emergency weyn waxaa ku dhan warbixin gaar ah oo ay Boorama News kaaga diyaarisay xaaladda dhimashada xoolaha dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixinta qaybta dambe kala soco xaaladda dadka ku sugan degmada Quljeed ay ku nool yihiin halkan aan ku sugannahay waxa ku sugan qoyskii aan hadda wareysanaynay waxaad arkaysaan inay oodaas iyaga iyo caruurtii iyo maqashii ay wateen ay hadhka yar ka dayeen oodaha ay saareen dadkan barakacay ayna haysan hoy ay ku nastaan oo ay cadceeda iyo dabaysha iyo dhaxanta dhacaysa ay ka hoos galaan alaabtooda waxay ku rartaan ayna haysan dadkan badidooda waxay ka yimaadeen dalka Itoobiya muuqaalka aad arkaysaan waxa weeye ooda ay saareen oo ay isleeyihiin bal cadceedun ha idinka qariso xaaladda ay ku sugan yihiin ee dhabtii waa muuqaalka idin muuqda ee hadda aragtaan
barnaamijkan soo diyaariyey anigoo ah maxamed cumar jaray oo idinla socodsiinayay waa kamaradii cabdifataax ay